إنا لله وإنا له راجعون قدوميها حسبك معارضك ودني دكتور محمد عبد الله عرو isagoo ku hadlaya magaciisa go'aanka fulinta garabka dhalinyarada iyo haweenka xusbiga mucaaradka wadani waxa uu tacsi tiiraanyada u diray ehelkii qaraabadii iyo asxaabtii uu ka baxay Allah uu naxariista marxuun Maxamed Baashe Xaaji Xasan oo ku geeriyooday dalkaasi UK marxuunku waxa uu ahaa nin qiimo weyn ku lahaa ummadda si weyn ugu suntanaa kaydinta taariikhda ummadeed dhaqanka qorida suugaanta iyo fanka xil weyn ka soo qabtay hay'adaha saxaafadda Somaliland dumiyuu waxa uu ku sifeeyay marxuunku inuu ahaa oday weyn oo ku suntanaa qorida waayeelnimo badan lahaa samatalis xilkasnimo weyn oo lagu xusuusan doono qiimaha uu lahaa qalinka iyo qorida kaydinta muguurtada oo ahayd uu ummadda uga tagay sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu xuseen inuu marxuunkan ahaa dhalinyaradii halganka dib u xoreynta qaranka qayb weyn ka mid ah muddadii dheereed ahaana mujaahid zanama markii dambana noqday oday caan ku ah dhaqanka iyo saxaafadda gudoomiyuhu waxa uu marxuunka sidoo kale sheegay inuu ahaa nin dadaal badan haga weyn oo ahaa had iyo habeen sidoo uu ilaalin lahaa alabuurka iyo fanka ummadeed gudoomiyuhu waxa uu si gaar ah marxuunka ugu tacsiidinaya bahda saxaafadda dhaqanka fanka qorayaasha qoyska qaranka oo dhan ubadkiisa iyo oridiisa sidoo kale ehelkiisa oo geedidama iyo deer weyn uu ku dumay gudoomiyuhu waxa uu Ilaahay uga bariyay marxuunka inuu su'aalaha u fududeeyo uguna dambi dhaafo janno farduusana ka waraabiyo ehelkii qaraabadii iyo asxaabtii iyo caruurta uu marxuunku ka tagay samariye iimaan sadiiqana ka siiyo inna lillahi wa inna lahu raaji'uun warsaxaafadeedkan waxa ku saxiixnaa afayeenka xusbiga mucaaradka ee wadani Barkhad Jaamac Batuun Xamse Dabaare Star TV Hargeysa